بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين sida uu aadan ku bilaabay runtii hordhaca buugani waa buugaagta dunida ugu iibsiga badan ilaa 1997 markii uu horeysay la daabacay mana duugooba runtii fariinta waxaan baarsan yahay ma duugowdo inkastoo 97 durbaa muddo dheer ka soo wareegtay laakiin fariinta waxaan baarsan yahay ma duugowdo waana buugaagtan isleeyahay qof wal oo akhriyay uu saameeyay maxaan dhahday ama saameyn xooga ayuu ku yeeshay koobigan yar ee xaasha casaayan sito 7 sano ka hor baan akhriyay walina waa reference muhiim ah runtii oo maxaan dhahday ma dhigo marar badan oo ku noqdaa intaan aanu guda gelin mawduuca waxaan doonayaa inaan idinkoo gacanta taagay su'aal degdeg ah yar weydiiyo filimka la yiraahdo The Founder imisa qof baa daawada halkan fadhiya The Founder filimka ka sheekeynaya sidii shirkadda McDonald's loo aasaasay cidna hal qof way mawduuca filimka waxaan u imanayaa aakhirka dhamaadka ayaan u imanayaa insha Allah waxa u baahan inaynu isla fahanno muxuu ka hadlayaa buugani ama muxuu ku saabsan yahay buugani wuxuu ku saabsan yahay si kooban sida lacag loo sameeyo ay hantilo loo noqdo waa qodob laba wuxuu ku saabsan yahay wuxuu naqdiyayaa nolosha ay 90% iyo wax ka badan dadku tusaalahan reer galbeedku Mareykan buu kontakasku ka hadlaya isagu qaabka u nool yihiin isna aad buu u naqdiyaa oo wuxuu leeyahay nolosha gabigeedaba jid qaldan ayaynu tusaalahan haynaa oo haddaad u fiirsato imika innagana waa sidaasuna laakiin innaga fursado badan baan jirine markaad eegto Mareykan oo kale tusaalahan ama dunida reer galbeedka qofka waxa la yiraahdaa waalidkiisu waxa isku dayaan inay fursad waxbarasho fiican siiyaan waxa la yiraahdaa intaad iskuulka dhiganayso intaad jaamacadda dhiganayso dadaal grade fiican keen dhibco fiican ku baaso shahaadada ku qaado hadhowna shaqo fiican hel dadna waxa shaqada fiican ee shahaadadaasi ku damaanad qaadaya nolol wanaagsan laakiin xaqiiqadu sidaa aad bay uga fogtahay runta marka laga hadlo waayo Mareykanka qaabka ay noloshu u taalo tusaalahaan dadka hantigoosiga ama boqolkiiba inta bulshada yar ee nolosha Mareykan gacanta ku haysa ama qaabaysa qaabka ay u dhigeen ma anfacayso qofka sida tusaalahaan u nool marka su'aalaha ugu muhiimsan ee uu ka jawaabayo ama uu naqdiyo waxa kamid ah inuu qofku dadaalo waxbarashada ku fiican yahay oo grade fiican helo jaamacad fiican ka baxo ma damaanad qaadaysaa inuu lacag fiican shaqaysto ma damaanad qaadaysaa inuu hanti fiican samaysto ma damaanad qaadaysaa inuu nolol fiican ku noolaado waa maya qoraagan wuxuu leeyahay buug kale oo la yiraahdo maxay ardayda eeda ahi ugu shaqeeyaan ardayda siida oo mawduucan uu isna lamida waana xaqiiqo runtii haddaad u fiirsato dadka ugu badan ee shirkadaha ugu waaweyn ee dunida ka jira khaasatan Mareykan dadka aasaasay waa wada drop out qof kaliya jaamacad ka baxay kuma jiro shaqada dadaalkan iyo gradeskan la qaadanayo waxa loogu shaqo tagaanimo waxba baran halkeenna waa sida yaa hantida haysta dadka loo shaqo tagaa waayo qofka inuu dadaalna jaamacada uga soo baxay inuu rabay inay barru shaqeynaa waa qof aan weliga jaamacad tagin weeyaan tusaalahaan يعني wuxuu leeyahay nolosha shortcut bay u baahanta uma baahna in uu qofku jidkan dheer intuu maro uu hadhow lacagta adoon u noqdo oo lacagta u shaqeeyo mushkiladu ka hadlayo waynu sharxi doonaa lacagtu dadka tujaarta way u shaqeysaa laakiin dadka saboolka ah sabool marka leeyahay moodin in laga hadlayo dadaan waxba haysan Mareykanka wuxuu ka hadlayaa dadkan la yiraahdo middle class-ka oo ah dadka Mareykanka ugu badan qof shahaado jaamacadeed qaatay dabeetana shaqo yar oo fiican haysta dabeetana nolol sidaasoo mushaharkiisa yar iyo wax isku wada xidhan yihiin tusaale ahaan haysta qoraagu wuxuu ku doodayaa looma baahna in waqti la iskaga lumiyo sanado badan in jaamacad la dhigto aqoonta gebigeedaba wuxuu ku doodayaa waxaad uga baahan tahay sida lacagta loo maamulo inaad barato waxa la yiraahdo financial literacy aqoonta maaliyadeed ee lacagta lagu maamulo inaad barato ayaad aqoonta gebigeedaba uga baahanta ee uga baahnida digriye iyo jaamacado aad tusaale ahaan waqti maxaan dhahdaa iskaga lumiso
financial literacy guna waa sida lacagtu u shaqayso inaad barato ganacsi ma geli karo qofku nolol ma samayn karo ama shirkad ma bilaabi karo isagoon aqoon u lahayn siday lacagtu u shaqayso tusaale ahaan marka wuxuu leeyahay ma wanaagsana qofku inuu bilaabo isagoon aqoonta lacagta aqoon oo dhan wuxuu uga baahan yahay inta lacagta ka khusaysa ee uma baahna aqoon kale oo badan de su'aalo badan baa halka ka imanaya oo isweydiin ka raacta haddaynu dhammaanteen aqoonta iska dayno yaa dhakhaatiir noo noqonaya yaa tusaale ahaan macallimiin noo noqonaya waa dood kale oo tusaale ahaan jirta laakiin waxa aad dareemi kartaa oo mar walba yadna muhiim in la isweydiiyo boqolkiiba imisa ka mid ah bulshada ayaa taladan qaadanaya dadku marka horeba uma samaysnayn inay riski qaataan oo ay maxaan dhahday taladiisa wada qaataan tusaale ahaan haddii taladiisa la wada qaadan lahayo bulshadu ay noqon lahayd sidan uu isagu doonayo waxaa laga yaabaa in noloshu ay adkaan lahayd oo adeegyo badan iyo aqoon badan iyo xirfad badan ay lumi lahayd aqoonta nolosha uu aadka uga digayo runtii aan contextkeena ku badnayn wuxuu u bixiyey wax nolol la yidhaha rat race waxa weeyaan waa nolol yacni waa vicious cycle aan dhammaanayn oo wareeggaa qofku uu ku jirayo tartanka ama baritanka jiirka ayaa lagu turjumi karaa waa maxay waa qofku in aabbihiiyo waalidkiisu ay u damaanad qaadaan waxbarasho fiican ku dhiirigeliyaan inuu jaamacad fiican galo inuu grade fiican helo kadibna shaqo fiican helo shaqo fiican maalintuu helo nolosha wuxuu ka bilaabayaa halka u hooseysa nolol wax alla wax hanti uu haystaa ma jiro qofku markuu jaamacad ka soo baxo ee uu nolol bilaabayo marka muxuu samaynayaa shaqada uu horeyso helo dayn yar buu qaadanayaa bangi buu gaadhi ka daynsanaya bangigii markuu iska celiyo uu guursanaya waxa laga yaabaa nolosha lacagtu ku samaysanaya waa dayn actually nolosha reer galbeedku sideenan uma taalo qofku waa nolol individualist weeyaan noloshan oo shakhsigu uu keligii nool yahay oo noloshu keligii ku salaysan tahay wuxuu amaahanayaa guri yar oo uu dego amaahanayaa mortgage inuu guri dayn ku qaato noloshiisa dhan wuxuu u shaqaynayaa struggle buu ku jiraa qofku xataa shaqadii haddii uu si xun loogu tiridgareeyo berri kama tegi karo waayo berri hadduu ka tago gurigiisii buu waayaa gaadhigiisii buu waayaa bangi dhinac walba dacal kasta waa la haystaa taasina waa mushkilad kale marka qofku wuxuu addoon u noqonayaa oo u shaqaynayaa lacagta lafteedu u shaqaynaya laakiin hadduu qofku wuxuu leeyahay aragtideedan iyo aniga uu jidkan aan sheegayo uu raaci lahaa oo uu ku biiri lahaa tusaale ahaan waa beensatiga hantida le ummadda maxaan dhahdaa u taliya wuxuu ku biiri lahaa uu noqon lahaa qof ay lacagtu iyadu u shaqayso ee muu noqdeen qof lacagta addoon u ah oo lacagtu maxaan dhahdaa lacag u shaqeeyo lacag la'aanteed aan noolaan karin tusaale ahaan rat raceka qofku markuu ku jiro waxaa la idhaha saddex qol u shaqeeya kow shirkadda aad u shaqayso owneriskeeda horta u shaqaysa oo waa wixii uu Karl Marx ka hadlayay aragtidan ah dadka xoogsatada ahi hantida iyagaa sameeya laakiin yaa leh hantida yaa leh aakhirka waxa leh dadka ay u shaqeeyaan ayaa hantida qaata oo aan tacab badan ka gelin ama dadaal badan aan ka gelin laakiin cidda hantidan samaysay waa dadka shaqaalaha marka kow waxaad ka shaqaysaa markaad qof shaqaalaha tahay qofka shirkadda aad u shaqayso leh ayaad horta shaqaale u tahay oo isagaad hantidiisa samaysaa isagaad hantidiisa kobcisaa isagaad ka jirtaa ka dhigtaa bilyaneer adiguna waxaad qaadataa wax yaroo saacada lagugu dhuftay tusaale ahaan oo aan dhaafsiisnayn inta aan sheegayay ayaad qaadataa marka koowaad qofka maxaan dhahdaa shakhsiga caadiga ee middle classki wuxuu u shaqeeyaa shirkadiisa cidda leh marka labaadna wuxuu u shaqeeyaa dawladda oo caalamka innaga way nagu yar tahay qofka aad baa loo cashuuraa shaqaalaha income tax baa laga qaadaa waxa laga yaabaa in 30% 25% mushaharkiisii ay dawladdu qaadato shay kasta uu leeyahay hadhoodii baa loo cashuuraya property tax baa laga soo qaadaya gurigii yaraaye aanad awalba mulkiyadiisa weli yeelanay uu bankigu lacagta ka qaado bishii property tax baa laga qaadaya cashuuro kale oo badan baa jiro oo maxaan dhahdaa laga qaadayo tusaalahan marka labaadna dawladda aad u shaqaysaa oo waxa laga yaabaa mushaharkaaga 40% in dawladdu soo xaadirto adigoo kaba qadayn bishu markay saa u dhamaato tusaalahan taasina waxa weeyaan qodobka labaad marka saddexaadna waxa u shaqeeyaan bangiyo oo waan ku sheegay qofkii mortgage yar buu qaatay oo guri yar baa oo deynsaday gaari yar buu deynsaday hadduu doono wax yar oo kale u bilaabay oo deyn buu ku qaatay waxa laga yaabaa laba saddex meelood bangigii uu lacag inuu shubo ka sugayo tusaale ahaan bishu marka ay dhamaato marka mushkiladda ugu weyn ee dadkan haysta waxa weeyaan middle classka ama dadkan caadiga ah ee shaqaalaha waxa weeyaan inay raad raiska ku jiraan
oo aanay xorba ahayn cycle-ka noocaasa ay ku jiraan oo dadaan iyaga ahayn ay u shaqaynayaan iyaguna aanay waxba u dhigmin oo qof meel shilin u dhigmaana aanu tusaale ahaan jirin marka isagu wuxuu ku talinayaa option cusub oo la yidhaha fast track jid yaroo degdeg ay la qaado oo inta la iska daayo noloshan cycle-ka ah maxaan dhahdaayeen laga gudbo si taa looga gudbo wuxuu ka digayaa nidaamkan aynu raacnay qofka waxbarashada lagu qasbayo ee la leeyahay 12 sano dugsiyo dhigo 4 sano jaamacad dhigo master ku sii dar sii wad oo noloshiisiiba uu ku qaadanayo qofka waxbarasho iyo wax soo saar la'aan ayuu ka digayaa tusaalahan oo wuxuu leeyahay waxa ka fiican in dadka la baro sida lacagta loo maamulo aqoonta lacagta lagu maamulo lacagta lagu sameeyo in la baro kadibna ay noloshooda bilaabaan oo ay ku dhiiradaan nolosha riskiga ay u bareeraan oo riskiga ay qaataan ayuu tusaale ahaan ka sheekeynaya arrinta kale muhiimku ka hadlaya waxa weeye nidaamka waxbarashadu waxbarashadeenu ay u qaabaysan tahay markaad eegto dhammaanteed aqoontan lacagta loo baahan yahay dugsiyadeena iyo jaamacadeena laguma barto taa waa in la ogaado qofku aqoon kastuu bartay ka accounting bartay ugama aqoon badna sida lacag loo sameeyo qofka bartay waxaan shaqo ku lahayn accounting tusaalaha wuxuu ku doodayaa waayo haddaad buugga ciwaankiisa aan ku yar noqono rich dad iyo poor dad waayo poor dad waa aabihii waa nin PhD haysta oo aqoon-yahana oo wasaaradda waxbarashada u shaqeeya oo maxaan dhahdaayay middle class-ki la yaqaanay Mareykanka laakiin waa buur rich dad waayo waa ninka millionaire-ka ee saaxiibkii dhalay ee baray sida lacagta loo sameeyo iyagoo yar yar dooda ugu weyn oo qabay cajiibka waxa weeye aqoonta lacagta samaynteeda iyo maamulkeeda laguma barto jaamacad iyo iskuul guriga lagu bartaa marka hadduu waalidka buur parent yahay oo sidaada inta jaamacad ama iskuul yar ka baxeenay sidaada cid kale u shaqeeyaan iyo dawladda iyo bank u shaqeeyaan kuma barayaan sida lacag loo sameeyo kuma barayaan sida lacag loo maamulo kuma barayaan tusaalahan marka wuxuu leeyahay waalidka uu aad ugu dhiiri gelinayaa hadday rabaan inay carruurtooda baraan sida lacag loo maamulo ama lacag loo sameeyo guriga lagu bartaa ee laguma baro jaamacad yaani ka sugin inaynu ama innaga lafteenu yana ka sugin inaynu jaamacadda ku baranno sida lacag loo sameeyo ama sida taajir ee maxaan dhahdaayeen loo noqdo tusaalahan qodobka kale muhiimka ee ka soo horjeedana waxa weeye sidaasi ka gadisan rat risk iyo dadka middle class-ka nu sheegaynay dadka tujaarta lacagtu iyaga u shaqaysa tusaale cajiibka oo soo qaadeen tusaale waxa kamid ah qofka shaqaalaha ee middle class-ka caadiga wuxuu wax cunaa markuu cid kastoo kale wax siiyo marka cashuurtii laga goosto dawladdu cashuurteedii ka goosato bangigu wixii uu deyn ku lahaa ka goosto biiliskii iyo kharashaadkii uu bixiyo kadib ayuu wixii yaraa u soo hadhay isagoo ka fikiraa maxaad see fikiraysaa maxaad cuntaa ka fikiraa laakiin tujaartu saa maaha tujaartu they eat first iyagu wixii soo hadha ay dawladda wax uga baadhbaadhaan taxkeyga iyo maxaan dhahdaay bangiyada iyo wixii la midka marka taasina waxa weeyaan qodob kale oo aad u muhiim ah oo ka hadlayo in la barto sida lacagta loo maamulo sidaad marka hore adigu lacagta naftaada aad wax uga tari lahayd intaanad adoon iyada u noqon iyo cidda leh ee bangiyada iyo shirkadaha cidda leh aanaad tusaalahaan noqon arrin kale oo muhiim ah Mustafana Xusay waxa weeye lacagta in la sameeyo waxa ka muhiimsan lacagta sida loo hayn lahayn la barto ee ka muhiimsan tusaalayaasha wada aragtay nimanka dadkan la yiraahdo celebrities-ka Mareykanka ama fanaan ha noqdo musician ama ciyaartooy ha noqdo tusaalahaan isagoo qof madow oo Mareykanka dabaqada u hooseysay kaga jiro oo aan lacag haysan ayuu tusaalahaan NBA player noqonaya basketballka tusaalahaan dabeetana waxa laga yaabaa inuu 3 sano gudahood $500 million lacag ah ay soo gasho laakiin mushkiladooda waxay noqotay mansion buu iibsanayaa gawaarida kugu qaalisan buu iibsanayaa dharka kugu qaalisan yani Mareykanka waxa jira wax la yiraahdo celebrity oo fake life marka runtii laga hadlo nolol aan xaqiiqo ku salaysnayna bari waa broke qofkii imise qof baad garanaysaa oo Mareykanka tusaalahaan dad inta samada mareen lacag inta soo gashay dabeetana hadhow baaba'ay tusaale yar waxaan soo qaadanay iska daa Mareykan tusaalahaan ka soo qaad ciyaartooydeena markaad ka soo qaado nin ciyaartooy reer Cameroon jiro song loo oran jiray inta ciyaarada daawata Arsenal ciyaar jiray markii dambana Barcelona wareegay Djibouti buu ka ciyaaray he is broke ninka Barcelona iyo Arsenal ciyaar jiray mar ciyaartooyda dunida ugu qaalisanaa wax lacag maanta haysta ma jirto mushkiladda waa maxay markaa lacag way soo martay lacag badan baa soo martay laakiin mushkiladda waa maxay aqoonta sida lacagta loo hayo ayaa maqan tusaale ahaan
arrinta kale Mustafa sheegay dad tujaarteena markay dhintaan lacagtu raacayso intaasaa ka maqan iyagana waxa ka maqan aqoonta lacagta lagu sameeyo lagu maamulo guriga lagu barayo carruurtaada bar ha ka rajayn inay iskuulada dhigtaan gurigaaga ku bar hadhowna sida loo hayo lacagta bar oo uu sii wadi karo tusaale ahaan taasaa maqan oo maxaan dhahdaay meesha ka maqan nin ganacsada oo bari Turkiga wax ka dhigan jiraan wareysanay ayaa igu waxaan doonayaa carruurteedu inuu mid PhD noqdo inuu mid double master noqdo waxa ku wari yaa adig kula shaqeeya carruurtaada cidna iga lama shaqeyso yaa bartay aqoon ganacsi midna mu baran marka lacagtan waxaad ku tala gashay hantidan aad ku tabacdeed samaysay inaanay berri ka dambayn inaan ka agno inuu engineer noqdo maxaan dhahdaay mushahar yar waxa diro maanta oo dhanna salaam guri la dhisay u taagnaado hantidii abiina halkan ay ku baabaado salaam marka buugan dadku anfacaya actually dadkeena hantida la kamid ah iyo qoysaska hantida leh ayaa kamid ah oo dareensiinaya ama uu gelinaya maxaan dhahdaay waaq inuu dareenkooga soo jeediyo yiraahdo baraarujiyo runtii oo ku baraarujiyo muhiimadda ay arrintani leedahay qodob kale oo muhiim ah waxa weeye cajiibi dadka middle class-ka ayaan aqoon nolosha in aqoon sida lacag loo sameeyo aqoon sida lacag loo maamulo haddana aqoonyahanka isku yaqaana oo qoraaga aabihiyo PhD haysta ka mid yahay waxay iibsadaan markay hanti yar soo gasho tusaale ahaan ama ay bangi deyn ka maahanayaan waxay qaataan liability tusaale ahaan qofka guri buu deynsaday bangi buu tagay wuxuu leeyahay gurigii maal geli ama gaadhigii maal geli qoraagu wuxuu ku leeyahay gaadhigani maaha asad qofku asad buu yaqaanaa hanti baan yeeshay hanti ma gurtaa baan yeesho guri baan bangi ka qaatay ayuu qofku aaminsan yahay laakiin xaqiiqada uu buugani ku taabsiinay gu tagaysa wax weeye qofkani wuxuu liability buu iibsaday liability waa maxay liability turjumaagu wuxuu ku turjumay deyn okay waa deyn marka si loo eego laakiin deyn macno badan bay leedahay liability waa erey accounting kaliya lagu isticmaalo marka aqoon ahaan loo isticmaalayo laakiin erey ingiriisi caadi weey ingiriiska caadiga marka turjumaa culays waxaas culays buu ku yahay waxba kugu soo kordhiyo adigu wax ka jara tusaalahan waanigan gurigan uu qaadanaya raad rays buu gelinaya isaga mushaharkiisii 40% bangiga leh 40 sanadood 30 sanadood buu soconaya gurigaas inuu deyntiisa bixiyo tusaalahan qofkii adoon buu deedo noqonayaa shaqaalihii shaqaalanimadii wuxuu adoon u noqonayaa lacagtiisii waxaan jeedaa lacagtii buu adoon u noqonayaa u shaqeynaya lacagtii isaga weliga u shaqeyn mayso tusaalahan marka in la kala garto waxa ka muhiimsan buu ku leeyahay wax yar oo adigu aad leedahay oo deyn ahayn inaad lacag yar intaad urursato aad maal gashato ama wax si degdeg lacag kugu soo celinaya ayaa ka muhiimsan inaad deyn qaadato weliga ku soo soconayso arinta kale muhiimka lagu kala garan karaa waxa weeye asadku lacag buu jeebkaaga soo geliyaa lacag jeebkaaga kama saaro liability-ga guriga nimka 30 sano lacagta jeebkaaga ka saaraya ee mushahar yar oo qaadata kasta intaas soo beersanta qaadaneed ka warwarayso maaha asadku waa ka adiga bishii ku soo geliya lacag dakhliga ku soo gali jiray ka dheeraada ku soo geliyo way taala marka waxa isku qaldeen dadkan aqoonyahanka ah ee middle class-ki asadkii liability-ga isku qaldeen taana uu ka saxayo wuxuu leeyahay war ka daaya oo arinta dareema in muxuu ahaayay inaad asad maal gashataan hadii baad wax maal gashanaysaan asad maal gashada ayuu maxaan dhahday ku dhiirigelinayaa labadaas aan kala duwayn qodob kale cajiib ah buugu ka hadlaya waxa weeye war weligaa shaqaale ahaan shaqaalanimadu waa adoonnimo lacag baad u shaqaynaysaa dawlad baad u shaqaynaysaa shirkad baad nin kale aad u shaqaynaysaa oo jeebkiisa naaxinaysaa bangi baad u shaqaynaysaa weligaa shaqaale ahaan mind your own business shaqo samayso inaad shaqo samaysatona wuxuu kuugu dhiirigelinayaa laba arrimood baa jira haddii aad tusaale ahaan wuxuu ku leeyahay shirkad furato ood shirkadda ka shaqayso 12 hours 10 hours 8 hours still maad fahmin buu ku leeyahay secretka waayo weli waxa tahay nin u shaqaynaya waxa kale jira waxa la dhahaa business iyo profession businessku adiga ha ku shaqeeyo yani waxa weyn qofku markuu business furto inuu businesska ballaariyo kadibna uu businesska cid shaqaalaha ku wareejiyo nidaam maamul u sameeyo isaguna uu xor noqdo oo hawlo kale ka shaqeysto tusaalaha markaas lacagtu isaga u shaqeynaysa laakiin haddii still dukaankaaga yara ku dhex nimantahay waxba ma dhaantid kan baaba 8 saacadood xisaabsado oo iska soo ruuxa adigu waxa laga yaabaa 10 saacadood ku noqoto tusaalaha marka kala saar businesska iyo professionka kala saar haddii professionkaagu uu noqdo maxaan dhahdaay sidii qofkii shaqaalaha waqtigaaga dhan ka qaato inkastoo de ganacsigu u baahay marka hore inaad tacab badan geliso waqti badan u hurto sacrifice badan samayso laakiin haddana wuxuu ku leeyahay hadhow inaad ka korto ka madax banaanaato
ayaa iyaduna qodob kale oo aad u muhiim ah runtii waan soo ururinayaa qodobka ugu dambeeya waxa weeye buuggan wuxuu aad uga soo horjeedaa wax dadka middle class-ka dadka wax bartay ay aad u dhiirigeliyaan oo ah waxa la yidhahdo specialization-ka inuu qofku wax yar aqoon yar ku takhasuso ood wax yar oo gaara barato dentiist noqo waxa aqoon dunida jirta kale waxba kama taqaan accountant noqo aqoonta kale dunida jirta waxba kama taqaan arrintaa aad buu uga digayaa intii aad 12 sano iskuula iyo 4 sano iyo sanado kale oo ka dambeeya aad hal shay oo specialization hadhowna aad ku bariisiiso aad baran lahayd waxa ka muhiimsan inaad wax walba wax yar ka barato wax walba inaad wax yar ka barataa ka muhiimsan inaad saddex xirfadood taqaano ka muhiimsan inaad saddex aqoonood oo kala duwan wax ka taqaano oo accounting wax yar ka taqaano tusaale ahaan IT inaad wax yar ka taqaano aqoon kalena wax yar ka taqaano ayaa ka muhiimsan marka aragtidan ay jaamacaduhu dhiirigeliyaan ee la rabo qofka in aragtidiisa meel gaar ah lagu soo koobo leeyahay hebel waxa soo specialized ku yahay ama hebel waxa ku takhasus aad buu uga digayaa Kiyosaki qoraagu oo uu leeyahay arrintaasi sax ma aha arrintaas ma fiicna ha laga digtoonaado qofku aqoon kasta wax yar ha ka barto waxaana nolosha baysu ah financial literacy inaad maaliyadda iyo lacagta iyo say u shaqaysay saad lacag u maamuli kartay haddii ku soo gasho sida aad u hayn karto inaad wax ka taqaano marka buuggan buu ka horeeyo cash flow la yiraahdo jiray nidaam uu sameeyay baa jira qoraagu oo dadka ku baro sida lacagta loo maamulo actually waxa accountingka lagu barto jaamacadaha ee 4 sano 6 sano la barto isagu wuxuu ku soo koobayaa in yaroo practical oo inaad kala fahanto asad iyo liability maxaa u dhaxeeya lacag maxay tahay sidee u shaqaysaa sidee loo maamulaa ayuu ku soo koobaya haddaad u baahantiina waad raadin kartaa qoraagu waxyaabo aad ku dhiirigelin waxa ka mid ah investment waxa ugu fiican real estate hanti ma guurtaa inaad maal gashato ayaa investment ugu fiican oo imika guri inaad dhisato maal gashato iyo inaad gaari dhisato maal gashato isku bardhig tusaale ahaan waxyaabo qaad waxa ka mid ah gaarigu marka caadiyan la xisaabinayo la qiimeynayo markaad macdarkaad ka iibsatay saa uga soo dhaqaajiso 30% value-giisu lumay haddii 5,000 laga siiyay 4,500 wax ka badan cid kama siisan karto albaabka macdarka waa taagantaad ay ogow depreciation ka kamid ah meelaha laga eego maalgelinta intuu waxaan value-giisu luminaya intee ku qaadanaysaa inuu qiimihiisu ka lumo ama uu qiimihiisu ka baaboo tusaalaha marka arrintaasina waa arrin aad u muhiim ah waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan u yariman doonaa qoraaga buugga iyo turjumaadda laakiin qodob filimkii aan bilowgeedin weydiiyey waxaa jira film la yidhahdo The Founder oo runtii aad idinku dhiirigelin inaad daawataan waayo filimkaas iyo buuggani aad bay isugu xidhan yihiin waxaad fahmi kartaa waxa la yidhaahdo hal abuurka entrepreneurship inuu qofku aragti cusub oo ganacsi la yimaado ama uu aragti arko ama uu aragti soo kordhiyo ayaa muhiima waayo Soomaalida laftooda waxaad moodaa in entrepreneurship-ka aad u qalad fahansan tahay oo innaga waad aragto horta hal abuur dadkeenu ma laha xagga ganacsiga marka laga eego tusaale ahaan laakiin buug baa jira ninkii PayPal qolyii sameeyay kamid oo qoro la yiraahdo 0 to 1 hal abuur waxa la yiraahdaa waxaan jirin oo 0 ya inaad wax jira ka samayso 1 la timaado hal abuur la yiraahdo laakiin hal abuur lama yiraahdo inaad wax jiray ama yar modify garayso ama aad imitate garayso sidiisa soo qaadato isaga hal abuur lama yiraahdo waan ku yar dheeraaday buugga waxa ku jira tusaale ninka aasaasay shirkadda McDonald's ayaa arday jaamacad Mareykanka khudbad u jeediyay dabeetana markii ay lecture-kii ay ka soo baxeen bay ku yiraahdeen maadaama nin ganacsado macruuf oo lacag badan sameeyay ardayduna business class bay ahaayeen waxa ku yiraahdeen waqti yar ma haysaa inaan cafeteria noo raacdo inuu sheekaysano haabuu ku yiraahdeen mar su'aal buu weydiiyey wuxuu ku yiri shirkadda McDonald's oo ma taqaanaan haa maxay ka ganacsataa McDonald's maxay ka ganacsataa fast food and burger soma sidaas uma ardaydii uu su'aasha weydiinay ugu jawaabay laakiin waa qalad actually shirkadda McDonald's la yiraahdo kama ganacsato burger kan iyo waxaan aragtaan kama ganacsato waa real estate company anigu maalinta buugaan akhriyay 7 sano 8 sano ka hor ma fahmin mawduuca ilaa aan daawaday filimkan The Founder markaas aan fahmay wuxuu uga jeedo Kiyosaki uga jeedo shirkadda waxay ka ganacsato iyo inaanay ahayn maxaan dhahdaay burger aanay ahayn iyo fast food shirkadda real estate ba ka ganacsataa sida uga ganacsataan idinkaan idin inaad filimka daawataan filimka raadisaan aad buu filimkaas muhiim u yahay
dabeetana markaasaad maxaan dhahdaayeen aad dareemi kartaan okay intaasaan buugga kaga baxayaa turjumaaga buugga aad baan runtii ugu mahadnaqayaa shaqo fiican buu qabtay buuggan waa buug aad u muhiima inkastoo la sheegay in fiilkiisu aanu ahayn wax la xidhiidha buugga marka laga yaabaa in contextka tusaale ahaan accountingka iyo finance-ka buuggan waa finance aqoon ahaan in uu ka yar gudbo maadaama qofkii contextka si deeply ula haysan oo fiil kale ka yimid waa possible laakiin qaab qoraalka markaad eegto waxyaabo erayo qaar aan isleeyahay kumay habboonayn oo isticmaalay baa jira imika tusaaleaan ereyga corporation oo kale waa erey qof kastoo business finance accounting economics barta uu garan karo ereyga qoraaga wuxuu ku turjumay iskaashato actually corporationku iskaashato ma aha wax u dhowtoona ma aha simply waa shirkad corporationku shirkadaha marka businesska la joogo dhowr level ah ma level ka mid ah waana levelada ugu waaweyn shirkadaha tusaaleaan dunida ugu waaweyn ay dad badan wada leeyihiin characteristics gaar ay leeyihiin iskaashato cooperative oo kale noqon karta dad inta isku yimaadeen wax wada samaysto hawl wada qabsada oo dan wada danaysta ayaa ka mid ah tusaale ahaan ereyada qaar siduu sharmaarkaa runtii sheegay buuggani contextkeena uu ka yar fog yahay oo aniga nolosha middle classka dadka Mareykanka ah ayuu si fiican u sharxaya waxa laga yaabaa inagana inuu middle class ma jirin tusaale ahaan middle class ma jirin baa laga yaabaa contextkuna yar mushkilad buu noqon karaa ereyada qaar qoraaga waxa ku badan waxaan la yidhaha havenka in laba erey dash shir la iskugu xidho marka Soomaaliga aad bay u adag tahay inaad go'aansato waxaan ma hal ereyba oo sidiisa waan isku dhajiyaa ma haven baan u dhaxaysay waan isku xidhaa mise waan kala dhigaa ereyes qaataa jira tusaalahan mise waan kala dhigaa marka waxaad moodaa qoraagu inuu aad ereyo aan macquul ahayn la israaciyo havenka la iskugu xidho ayuu runtii iskugu xidhayaa iyadana waa qodob kale qodobada kale marka tusaale ahaan Soomaaligu inta badan luqad fadhida ma aha erey af Soomaali marka hadaan ku sheego waxa laga yaabaa 5 erey oo Ingiriisiyo kala wada macno duwanay kugu soo dhacaan marka af Soomaali waxa ku qorayso inaad marka u horeysa ereyga aad uga jeedo aad bracket qaws aad geliso isagoo af Ingiriisi ku qoran waa arrin fiican laakiin ilaa xagga dambe inaad arintaa wadaa sax ma qofka inaad bilowga ugu joojiso ereygaas waxa soo macna Ingiriisi ahaan la mid yahay tusaale ahaan laakiin wixii ka dambeeya inaad u dayso qofku inuu sii wato kala tusaale ahaan arrintaas ka mid ah liability oo kale deyn buu isticmaalay runtii deyn baa loo isticmaalaa accountingka laakiin wax badan baa ku soo dhacaya oo imika Ingiriisiga liability iyo loan iyo debt credit mid la mid ma jiro mid kasta contextkaas gaar u leeyahay mid kasta contextkaas gaar u ku shaqeeya tusaale ahaan marka ereyada qaarna waa arrin yar tricky ah inaad go'aansato runtii siday u kala fiican yihiin laakiin iyaduna waa arrinta waan idinku reereeyay raali ahaada intaasaan ku soo gabagabeynaya. Assalaamu calaykum.